marka waxaan isweydiinay war caasimadii oo magaaladii ugu dadka badnayd dalka isla markaana ah xaruntii dalka dadkii gobolka metelayay maxaa dhiirigelin iyo garab istaag ay u waayeen sababtaas horta keentay inaanu xafladan idin qabanno annagoo aragnay inay mudan tahay in gobolka la isgarab istaago oo taageerayaasha guurguuro marka laga yimaado kuwa rasmiga ah ay garab istaagaan sababtaas horta nagu kaliftay inaanu idin casuuno aad baan ugu faraxsanahay inaanu dhiirigelin iyo garab istaag bay ku sameeyeen waxa qabanqaabayaasha kamida Axmed Ibrahim oo ah ninkii labadii goolkii guusha u dhaliyay gobolka markii la ciyaareen gobolka Awdal hadiyada guddoonsiiyay marka taageerayaasha guurguuro maniina taageerayaasha dhabta baan ilaa markay bilaabantay dhammaan gobolada Soomaaliland inay dhiirigeliyaan si joogtana ugu dadaalaan bal inay joogteeyaan tartamadan isdhexgalka bulshada iyo dhalinyartaba sare u qaadaya yeenan ku ekaysiin oo kaliya gobollo iyo degmooyin oo kaliya balse aan ku dadaalo formal leagues sida adduunyada oo kale inaynu sameeyno gobolada badan marka dhinac laga eego way fiicantahay in ciyaarihiis isdhexgalkii labadiyo goboladii kale la gaarsiiyo dad badan soo baxaan laakiin nuxurkaas meesha uu ka yar baxo nuxur kala yar galay oo ah in ay qolo waliba eeriyadii ay ku calaamadsanay istiraado halkaas gobolkiinu degaayo joogtaa taasina waxay keentay in ay area kasta ama gobol kastaba uu magac gaar ah u yeesho anagu halkan aan matalaynay aan ku dhalanay ee caasimadda waxa weeyaan waa caasimadii dalka waa la wada leeyahay waxaan baan ugu talagalnay dhalinyarta sportiga ah ee gobolka u ciyaaraysa inay dareemaan magaaladoodii meel kasta oo cidi ka joogtaba in lala socdo kii iman kari waayana inuu laabta kala socdo dee kii kalena uu dee ficilba ku darayo oo labada lugood intuu soo dhaqaajiyo uu garoonka iman doono haddii aan la idmo insha allah laakiin daaroorta ciyaar muhiim ay sugaysa horena waa u hooyanaysaan wixii dardaaran kubad ahaan aynu isodhanaynayna maanta qadadii baynu isnidho labadii tiimba meel la isugu yeedhay intaa maxamed khadar yidhi de akhlaaq wanaag iyo ciyaar wanaagna horena waa usoo bandhigteen berrina waa ku celinaysaan waa laydinka rajaynayaa de waanu idiin ducaynaynaa waa laydin garab taagan yahay taageerayaasha gurguura sheegteen taageerayaashu markay guuraan de waynay kusoo noqdeen halkii asalkoodii ahaa oo ay taageeraan maalin dhowto waxaa yidhi gobolka Maroodi-Jeex waa gobolka keliya Facebook ugu taageerada badan garoonkan cid kama joogto ciyaartooyga qaaliga ah dhalinyarada aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolka Maroodi-Jeex gaar ahaan caasimadda ee isku jiro ciyaartooy iyo dhalinyar kale oo aqoon-yahan ah ee gartay inay caaw macsuumaan ciyaartooyga iyo magaca uu Cumar Sayid sheegay iyo taageeridda uu Cumar Sayid sheegay in Maroodi-Jeex wanka noqday ragga u sababta ah ee halkan fadhiya ee saxaafadda ka shaqeeya ee wariyeyaasha caanka ah ee raaga oo maaradii sanadkana ee u horeeya xasan galeed ee Khalid le ee Xasan le ee Cabdiqaadir le raggaas oo dhan ee Xamse le runtii oo iyaguna Hargaysa ah aad iyo aad baan idin wada salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulli bacda salaan anaa hadhay looma hadlay maxaa hadhay baa loo hadlaa dardaaran wakaa cunun yar xidhan yahayo maantaynu kala dhammaysanay shalay waynu wada joognay waynu badinay xalay waynu badinay berri insha allah waynu badinaynaa insha allahu tacaala haddaad tiraa ilaahay baaba kuu dhabeynaya marka shalay markii aanu nidhi kubadda kolaygana koobkeeda gacanta midig baanu ku qaadan ka bidixdana waxaanu ku qaadan kaa lugta runtii xalay markii suurtooday dad badan baa ayaa ila soo hadlay whatsappkaygii dhowr boqoloo fariimood baan ugu tagoon akhriyi kari waayey aad bay u faraxsanaayeen warmaa idiin dhawooda bay lahaayeen malaa tii gacantii ta lugtuna way idiin dhawoobaysaa ha ka shakiyinaanu ku nidhi ha ka shakiyina raggaanu wadanaanu ognahay qadarka ilaahay unbaa ina dhaafinaya koobkaa